السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وقاسم محمد علي. والله Somali students واسكو تاج أرضي سوماليات وعالم كدافيس كل جوجو تصال أهان أرضي كسومالية إنجليز وحكبرتو UK وحكبرتو أرضي كندا وحكبرتو أرضي أستراليا وحكبرتو أرضي فرنسا جيرماني إيطاليا إسبان ماليزيا تايلاند إنديا باكستان الدنيا دافية بنغلاديش صوماليا كينيا أرضي ذا سودان إني اسكو تاجين أو دلكودي إدتكودي كفكران muhiimadda loo walway Somali students ay u taagan tahay waasaas waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee caalamka daafiisa kala joogto inay walway Somali students ka mid noqdaan sidii fikirkeena iyo maskaxdeena u mideen lahayn baritan dalkeena Soomaaliyeed iyo carigeena iyo dalkeena iyo ummadeena aan wax u qaban lahayn marka walway Somali students waa arday Soomaaliyeed oo ka madax banaan qabyaalad ka madax banaan goboleysi ka madax banaan waxyaalaha dadka inta badan isku jiro jecelna inay dalkooda iyo dadkooda iyo sharaftooda Soomaaliyeed soo celiyaan. Worldwide Somali students. Very ambitious. The Worldwide Somali Student Program is very ambitious. So for those people who aren't aware of it, it's basically a network of students around the world that are set up specifically to organize and to give something back to the community. And that community is not just the diaspora community, but specifically it's the Somali community back home. And you know, since its inception, it's grown to a huge network of people scattered from all continents. And the benefit for someone like me is that you have access to people who have the same background as you. So whether it's networking or advice, that's what the network exists for. So it's very ambitious, and I'm proud of it. It's a revolutionary idea. I think it's a great way for Somalis to connect, for different people of expertise, education, you know, skills to come together and actually move forward. I mean, because I think if you're on your own or you're just a small group, you're not going to be able to have that much of an impact. But when you're worldwide and there's different interconnecting organizations all coming together, then I think you can actually have more of an impact on Somalia and actually have a real progressive change to the country. Being a member of the Worldwide Somali Student Network has helped me find like-minded individuals who share similar ambitions and goals. I've also managed to acquire a sense of community within this network. I think also it's helped me become a better person, a lot more conscientious of the problems and issues that are facing Somalia, and I'm engaged now in improving the situation, obviously on a very small scale. waxaan jeclaan lahaa in oo ardada adduunka dhan oo Soomaalida in isku yimaadaan sababta haddii isku yimaadaan energy badan ay haystaan karti badan ay haystaan horumar badan aan gaarsiin karnaa wadanka Soomaaliland meel kasta Soomaali joogaan iyo wadamahan joognaba marka ma sha Allah waa wax fiican waa insha Allah marka dad oo dhakhtaryaal iyo injineeryaal iyo macallimiin wax kasta haysana marka horumar inaan gaarsiino future-ka Soomaaliland waa I joined the Worldwide Somali Students because I'm only half Somali. My mom's German and my dad's Somali. For me, my main goal was to meet people who are also Somali, who are students and who I have things in common with and who could teach me a little bit more about Somali culture, and especially because I don't speak the language. And yes, Worldwide Somali Students and especially UCL Somali Society has really helped me in that, because I met so many great people. They were all very nice and taught me a lot of things that I didn't know before about Somalia and Somali culture. If I think of myself and wanting to work in the media sector, especially as a broadcast journalist, I would be hoping to shed some light on problems and issues in Somalia, because there are so many, and all we get to hear is about the pirates and the war, and it would be nice to have some different approaches sometimes. So that would be my aim personally. Worldwide Somali Students waxay u taagan tahay muhiimada fara badan. Muhiimada ugu muhiimsan waxaa kamid ah in ardayda Soomaaliyeed ee caalamka daafiisa kala joogo
in qof kasto arday kasto isku kooxa ama isku group ah ay isku fahmaan kaba soo qaad qolada dhaqaatiirta arday soo qalajibinayso oo medicine ka bixayso qolada maxaa la air science ka baranayso qolada mathematician ka chemistry inay group walba isku xirmaan si loo helo arday Soomaaliyeed oo field walba oo adduunka looga baahan yahay wadan u baahan yahay loo mideeyo taas ka sokow waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabisa fieldiga ugu muhiimsan adduunyada ama subjectyaasha barta adduunyada ugu muhiimsan inay insha Allah taala inta isku xirano dalkeena sida haddaba aan sameeyno dalkeena iyo dadkeena waxaan u qaban lahayn aan ka fikirno tusaale ahaan waxa hadda naga mid walaalkay Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ha siiyo oo wuxuu bartay master's degree wuxuu ku sameeyay jaamacadda beeraha asagoo kale insha Allah taala waxaan rajaynaynaa asaga iyo qaybta iyo departmentiga hogaaminaydan inaan wadankeeni aan ka qabano beeraha ugu soo ognahay Somali inay qari beeraha ku tahay inaan uga dambeeyno walaalkeen sida beeraha kale loo horumarin lahaa ayadoo student led project ay tahay ardayda barnaamij ay hogaaminayso waxa kamid ah caafimaadka waxa rajaynaynaa insha Allah taala ardayda caalamka ka soo qalin jabis daafiisa in la helo in dalkoodu wax u taraan una qabtaan waxa kamid ah air science oo aniga aan barto geologiyada sida oilka gaaska iyo natural resources-ga wadankeena leeyahay looga faa'iideysan lahaa marka insha Allah taala World Somali Students waxay u taagan tahay muhiimada aad u tiro badan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sanadkan lagu jiro 2011 iyo sanadka 2012 iyo sanadada soo socda dhan in la helo arday Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda inay xuquuqtaan rabo ayagoo aan cid wax ka sugaynin Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaalamadiisa rajaynayo dalkooda inay xuquuqtaan rabaan Somaliday wax la idin carbinaya layn caawinaya caruurtii Somaliday wax la idin carbinaya layn caawinaya I believe this is a very good program because at the moment we have students from all different universities that are doing little programs, the small little societies. But if we are able to connect Somalis from different Somalis all over the world and have all the societies connected on a large scale, we'll be able to do things a lot more easier because with manpower, you're able to have more resources. And if you have more resources, you can do stuff on a larger scale. World Somali Students waxay qabataa activity-yaal ama shaqooyin fara badan ee u qabatay bulshada Soomaaliyeed haddeertan waqtiga aan kula hadlayo waxa kamid ah shaqooyinkeena inaan isku dayno jaamacadaha aan joogno wadamada tusaale ahaan Australia, Ingiriiska iyo maxalliga Canada iyo jaamacado badanba in ardayda Soomaaliyeed jaamacadooda la tago lagu dhiirigeliyo si bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen. So giving back is very important for me because I've got younger brothers and I realized that unless graduates like myself, yourself, get back to giving something to the community, whether it's doing tutoring or teaching, community organization, whatever it takes, I think unless you do that, then there's a gap. I think that is open to being, taken apart by different people. And hadda UK ahaan waxaan qabanaynaa barnaamij waxa kamid ah in ardayda Soomaaliyeed oo iyo hooyooyinka aan u qabano shirar ku saabsan sidii jaamacada ay ugu fiican arday ay ku gal lahaayeen sida qofka ardayga baranayo kale maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan medicine-ka ardayga baranayo waxyaalaha kale inuu laga helo faahfaahin maadaama anaga jaamacadii aad joogno in ardayda soo korayso aan chance siino waqtigood waxaan u sheegno anaga dhibka aan marnay inay sameeyaan si fudud ayaga jaamacadaha ugu fiican ay ku gali karaan. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. I'm coming home.
waxaa jirto project aan rabno ama arrin aan rabno inaan dhammaanteen isla sameyno barnaamijkaasna waxaa loogu magac daray socdaalkii rajo soo celinta Soomaaliya 2012 waa hadda socdaalkii rajo soo celinta Soomaaliya 2012 ama Operation Restore Hope Somalia 2012 barnaamijkaas waxa waa insha Allah taala bisha June ee 6 2012 waxaan rajaynaynaa arday Soomaaliyeed oo worldwide Somali students ka tirsan insha Allah taala inaan dhammaanteen caalamka dunida iskaga imaano wadankeena hooyana aan tagno. I would love to do that, definitely, because you know, I haven't been back home since I left when I was about 5, and definitely feel that I can give something back to my community. I certainly have the know-how and the knowledge to do that. The question is, will there be stability for people like myself to go back to? And you know, my hope is that over the next few years, that stability will come back and that people will start turning back to give something back in Somalia. ugu yaraan 10 magaalo oo waaweyn inaan booqano insha Allah taala magaalooyinkaas oo Soomaaliya ka mid ah Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa, Burco, Beledweyne oo ah meeshaan aan ka yimid maxaa ay magaalooyin badan Jowhar, Kismaayo waxaan rajaynaynaa Baydhabo inaan magaalooyin waaweyn Soomaaliya ah aan tagno insha Allah taala anagoona wax weyn inaan ka qaban rajaynayno dhinaca beeraha inaan wax weyn ka qabano beera aan investment anaga dhalinyaro wax iska arurno ku sameeyno iyo caafimaadka insha Allah taala laakiin waxa noogu muhiimsan inaan dhulkeena hooyo oo aan intaas oo sano arkin aan insha Allah taala soo tagno oo wax ka qabano oo dalkeeni ku laabano 2012 waa socdaalkii rajo soo celinta Soomaaliya waxaan rajaynaynaa Soomaali arday kasta oo Soomaali ah ama ardaynimo soo maro hadda professional ah oo ku shaqeeyo inuu nagala qayb galo socdaalkaas ilaahay idinkii Soomaaliya rajo fiican ay leedahay waxaan rajaynaynaa inaan dadka quusanin ilaahayna subxaanahu wa ta'ala rajadiisa laga quusanin insha Allah ta'ala Soomaaliya 2012 kadib inay colaadaha ka dhamaadaan dalkeenan u laabano hadii aad tahay arday Soomaaliyeed ama aabbo Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed ee rabto inaan maaragtay ama ardaynimo soo maro oo rabo inuu dalkiisa wax u laabto sanadka dambe inaan raacdid nala laabatid socdaalkii rajo soo celinta Soomaaliya 2012 insha Allah ta'ala ayuu dhacayaa that is waxa noogu muhiimsan ama projectiga noogu weyn oo sanadka dambe qaban karno diiwaangelintan way bilaabatay khayr ayaan ku rajaynayaa insha Allah naxariista ilaahayna lagama quusto and Somalia will be back stronger.